السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات بن صاحب يالني سلامية اسكسو نقد وناكسن وحن آدي ذنكر علي قلنا وقت بدن وان كم مغنين كنال كينن وحن كلام آدي أدقو فرحسنا هاي إنه قارني سيدات بقول صاحب أما سيدات بقول يوحل ترى وحنا رجعنا يا مديرة كوان جدهد إنه نكو قارنو أنت لغة بحنا يوتيوب كينا سي إنه ديرجلنا وقعدنا ونصب بدينا فيديو نوعا وكلا هذا برنامج كنا ما نتكلم دونا وحنا نقول دونا toddobada calaamadood oo lagu garto dadka ku neceb waxaynu ognahay qof kastaaba inuu leeyahay dad isaga jecel indhala'aan aadna u neceb qaarkood indhala'aan haddaba arrinka la yaabo waxa uu yahay inuu tani tahay sunnaha bini'aadamka inuu qofku yeesho dad neceb iyo dad jecel waa sunnaha bini'aadamka haddaba maanta waxaan ku soo qaadan doonaa toddoba calaamadood oo lagu garto qofka sida dhabta ah ku neceb kama hadlaya ku muujiyay nacaybkiisa oo ku yiri wariyaa waan ku necabahay oo aad dhibtiisa ka fogaanayso balse waa saaxiib mid kula ah ama iska ka dhigay inuu saaxiib kula yahay balse dhabarka ka tooganaya ama dhabarka ka qaninaya digniin calaamadahan toddobada hadii aad qofka ku wada aragto mooyaane kuma xukumi kartid qaar kamida waayo waxa yeelan kara qaar kamida saaxiibada ku dhow sababtoo ah waa wax iska normal in marmar qaarkood laga hor yimaado ama maseer ku yimaado haddaba barnaamijkeena haddaan gudaha u sii galno calaamada koobaad calaamada jirka ee nacaybka muujisa waxaynu ognahay calaamada jireed inay jiraan oo saynisyahanada cilmi nafsiga ku takhasusay ay sameeyeen sida qofka oo qabsada sankiisa oo kale marka aad wax fiican ama wanaag aad samayso qofka oo sankiisa qabsada arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay qofkaasi inuu nacaybsho ku muujinayo qodobka labaad qofka oo aan ku amaanin ama aan ku hambaliyin marka aad guul gaadho waxaynu ognahay qof kastaba inuu jecel yahay in la hambaleeyo oo markasta la jeclaysiiyo waxaanu qabanayo inuu hore ugu sii socdo balse saaxiibkan intaa ka helmaysid waxaad ka helaysaa inuu ku yiraahdo markan way ku gashay laakiin mar labaad u maleyn maayo inay saasoo kala dhici doontay ka feejignow iyo waxyaabo la mid ah inuu ku moraal jabiyo ayuu ka jecel yahay inuu hore u soco ku yiraahdo qodobka saddexaad qofka oo hadallo xun ku yiraahda marka uu saaxiibada ama dadka saaxiibadatiin ay wadaagtaan uu ku hor joogo waxaynu ognahay qofku inuu wax ka sheegi karo balse wax xadidan uu ka sheegi karo lagama yaabo saaxiibkani waxyaabaha private-ka iyo waxyaabaha kale inuu kala saaro waxa laga yaabo wax kasta oo ku qarsoona inuu dibadda soo dhigo waxna lama aha oo waayo aad ayuu ugu faraxsay arrinkan uu qabanayo qodobka afraad qofka oo aan ku qoslin kaftankaaga waxaynu ognahay qof kastaaba inuu leeyahay kaftan yar ama inuu dadka ka qosliyo uu jecel yahay balse saaxiibkan xataa hadii aad wax qosla tiraahdo inuu ku qoslo lama yaabo sababtoo ah adiga ayuu aad ku neceb yahay qodobka shanaad calaamadaha uu muujiyo marka aad murugaysan tahay qofkani marka aad murugaysan tahay waxa laga yaabaa inuu suniyihiisa taabto sababtoo ah cilmi baadhisa qaarkood ayaa tibaaxa in qofku hadduu taabto timaha ku yaala suniyihiisa ay muujinayso inuu qofkaasi arrinka meesha ka socdo ku faraxsan yahay marka aad murugaysan tahay aad iyo aad ayuu ugu farxaa qodobka lixaad qofkaasi waxa uu u kurgali doonaa ama uu raadin doonaa meelaha lagu dhibaateynaya dadka ku necbi iyagna joogaan ee kaaga sheekaynayaan inuu aado warkaasina uu aad u dhageysto sababtoo ah warkaasi uu maqlaya aad ayuu ugu raaxaysanaya qodobkeena u dambeeya waxa uu isku dayi doonaa marka aad mashruuc guulaysta ama wax guulaysta ula timaado inuu hoos ku dhiga ama uu ku yiraahdo war waxaan negative-kiisa badan inaad ka hadhaa ku fiican iyo waxyaalo la mid ah hadii aad aragto qof toddobada calaamadood ee aan soo sheegay xambaarsan ama huwan kaasi waa qof aad iyo aad ku neceb ee ka fogow waxaan iska dhaleeyahay maaha waa daraasado la sameeyay iyo cilmi baadhis la tijaabiyay dad bilaadanana lagu tijaabiyay laguna guulaystay haddaba waxaan kaaga digayaa qayb kamid ah hadii aad ku aragto inaad qof ku xukunto waayo qayb kamid ah waxa yeelan kara dadkan iska caadiga ee normalka dadka oo dhanna ha ka wada filan waxaan kula wadaagayaa talo yar taladaas waxa ay tahay samayso wax ku gaara xataa saaxiibka iska daayay waalidka xataa la ogaan ama uu kula ogaan sababtoo ah waxa jira wax yar oo hadii aad joogtayso wax weyn hadhow noqon doona camalkana waxa ugu fiican waxa yar ee la joogteeyo diinteena islaamkana ina faraysa camalku waxa yar ee la joogtay inay fiican tahay haddaba adiguna samee wax yar oo joogtayso oo adiga ku khuseeya balse aanad u sheegin dadkan ka ag family-gaaga iyo dadkan ka agdhow oo private kaliya ku ah aad baan salaamay saaxiibayaal videoga dad ka heshay fadlan muuqaalkeena like saar si uu asxaab badan u gaaro waan salaamaya